habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan saaxiibada ku xiran janaalkeena hoyga fanka waxaan la wadaagaynaa war degdeg ah oo goordhow naga soo gaaray magaalada muqdisho. Warkan degdeg ayaa la xiriira in goordhow muqdisho uu ku geeriyooday allah u naxariistay Cumar Cabdulle Shooli madaalihii hobalada waa beri samaadkii. daawadayaal toddobaadkii hore ay ahayd markii aan muuqaal aan warbixin aan ka diyaarinay Cumar Shooli kaasoo aan ku eegnay xaaladiisa uu xanuunsanaa. Fanaanka ayaana xanuunsanayay wixii ka dambeeyay 3 toddobaad ee ugu dambeysay wuxuuna ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Laakiin xubno ka mid ah qoyskiisa ayaa caawa hoyga fanka u xaqiijiyay janaaladana YouTube-ka xanta fanka iyo waliba xogta fankaba geerida aabahooda allah u naxariistay Cumar Shooli. waxa inoo xaqiijisay waa Axmed Cumar Shooli Muqdisho ku sugan oo wiilka dhalay fanaankan oo aan la hadlay ayaa inoo xaqiijiyay geerida Cumar Shooli. Muqdisho waxa uu soo gaaray bartamihii sanadkii hore 2019 isagoo caafimaad qaba waxaa la sheegay inuu markii dambena aad u xanuunsado uu kusoo kordhay xanuunka macaanka ama sonkorta xanuunkaas uu la xanuunsanayay 3 isbuuc oo lagu dabeynay magaalada Muqdisho. Fanaanka oo marba xaaladiisa si eeday ayaa la sheegay in ugu dambeyn u dhintay. allah u naxariistay fanaanka caanka ah ee Cumar Cabdulle Shooli ayaa goordhow Muqdisho ku geeriyooday waxayna noo xaqiijiyeen wiilkiisa oo lagu magacaabo Axmedey Cumar Shooli oo wiilka u dhalay fanaanka oo Muqdisho ku sugan oo la hadlay ayaa inoo xaqiijiyay geerida aabe wuxuuna sheegay in wax yar ka hor uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho ay naftu ay ka baxday. sidoo kale waxa uu Axmed inoo sheegay in muddo 3 isbuuc ay kula jireen isbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho oo isbitaalka lagu dabiibo dadka macaanka qaba ama sokorta qababa. wuxuu sheegay in aabe xanuunkiisa ugu weyn ay ahayd inuu la xanuunsanayay xanuunka macaanka ah oo la jiifay oo xanuunkiisu ah midba heer ah oo maalinta ka dambaysa ka sii darayay. laakiin Axmed waxa uu inoo sheegay in aabe 2 isbuuc ugu dambeysay xaaladiisu ahayd mid oo kasoo kabanaysay sidii hore oo lislaha oo uu kasoo kabanaya xanuunka macaanka ah oo daawooyin badan dhaqaatiirtuna ay ku hoolanayeen. hase yeeshee nasiib darro waxa uu sheegay in aabe caawa fiidkii uu ku dhintay magaalada Muqdisho. sidoo kale Axmed waxa uu inoo sheegay inaysan jirin wax mas'uul ah oo dowladda federaalka ah oo soo booqatay intuu aabe uu xanuunsanaa isbitaalka ku jiray. waxa uu sheegay in xubnaha mas'uuliyiinta dowladda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta inuusan wax soo booqan xubno mas'uuliyiina hobaladii kooxdii waa beri oo berismaadkii ka tirsanayeen aysan jirin fanaaniin waaweyn iyo abwaano soo booqday. hobaladii waaweyneed ee fanaanka uu ku jirayna aysan jirin wax soo booqday xitaa isbitaalka ku yimid. Axmed waxyaabaha xogta kale nala wadaaga waxaa ka mid ahaa in ay isku dayeen in xubnaha mas'uuliyiinta dowladda federaalka ay weydiistaan taageero dhaqaale intuu aabbo xanuunsanaa uu ku jiray isbitaalka. laakiin waxa uu sheegay nasiib darro inay ka waayeen taageero walbo dhaqaale ah oo aabba xaaladiisa dibadda looga qaadi lahaa. waxay sheegeen in marka ay dareemeen in xanuunka aabbo uu kasii darayo ay doonayeen in dalka dibaddiisa ay u qaadaan oo dibadda aabbe loo celiyo si xanuunkiisana loo dabiibo. laakiin dhaqaalaha oo uu sheegay Axmed oo aad u yaraa ay sababtay in ay awoodi waayeen in aabbe xanuunkiisa loo qaado dalka dibaddiisa halkaana lagu soo dabiibo. laakiin nasiib darro waxay sheegeen in dhowr mar ay isku dayeen in wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo waliba xubnaha kale wasaaraddu inay la kulmaan oo arrintan ay kala hadlaan. waxay sheegeen inay u suurtageli weysay inay la kulmaan xubnaha mas'uuliyiinta dowladda oo ugu horeeya wasiir Maareeye iyo waliba dadka kaleba. laakiin ugu dambeyn maadaama ay xubnihii dowladda ku guuldareysteen uu sheegay in hadda ay qorsheynayeen isbuucan in safar caafimaad oo dibadda ah loo qaado allah u naxariisto Cumar Shooli. laakiin waxa uu sheegay intaan la gaarin uu xanuunkan u dhintay caawa fiidkii ayuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho madaalihii hobalada waa beri. waxa uu ahaa nin magac caan ku ah madaalihii hobalada waa beri marka loo eego dhowr sano ka hor 30 sano ka hor markii uu ka mid ah fanaaniintii caanka ah ee ka soo baxay ama fanaaniintii ugu firfircoonaa hobalada waa berisamaadkii 70kii marka loo eego xilligii fanka Soomaaliya oo soo shaacbaxayay. wuxuu kaloo qayb ka ah waliba fanaaniintii waaweynaa ee dhanka masraxiyadda fanka kasoo muuqday ee hobalada waa beri tartankii heesaha hirgalay ee tiyaatarka qarankana ku soo baxay. waliba wuxuu ahaana magac waxa uu helay madaalihii hobalada waa beri taasoo keentay inuu noqday shakhsiga ugu saameynta badnaa. hase yeeshee Cumar intuu geeriyoon ayaa toddobaad ka hor waxaan ka sameynay warbixin aan ku eegin xaaladiisa waliba uu ku dalbanaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo taageerto maadaama asaga dowladda qaranka u soo shaqeynayay hobaladii waa berina
وقيب وكاه دتك فنك صوماليات وحبة سو أساسي لكن ويلكيسا أحمد عمر وحوي نوشة إن صورة جلين إن أبى وكله دولة فترة كتاجر قرار وزارة دي قاسوا كم دا تاجر دوان كوينو يري وين نصر تجري إن الحلا هو فنك ديانا هنا وحلنا إن لله وين إلى راجعين الله نحرسته إلهي نحرسه كنا الله سيه مداليه بلده وبري عمر شولي أو قدام بين مقدشة كلنتي وحكم إذا فنانين تقوى عن فنك الصوماليين أو حنا حدتكن أي وذي قانين إن إلهي حدثه مجد واحد مسؤولين على الدولة كهله ونتعسيني نهدينا البعض هو فنك وحلين هاي سمري من الله كصي أحمد يولبه إن قويس كلا عمر وكتجي ويلش يسقي قبليس وحلين هاي الله نحرسه قرال وزارة الفرفين كصباحين وحل وجري إن لله وإنا إلى راجعون الله نحرسه فنان كقران عمر عبد الله الشولي أو قرن وكجريو ده مقالة مقدسة وحنا جريد فنان كان وربهنتا وحقيقين يا لوير وزارة الفرفين سوماليا فنان كان وحكمها فنانينته بلده وبري إن لله وإنا إلى راجعون يا لوير قرال قومنا هذا كصباحي وزارة الفرفين سوماليا كقاعد عددا هدانا له فن كانوا حلينا الله نحرسه مداليه بلده وبري هجامي فنك سوماليا شمعي فنك إلهي نحرس جنة الله سيه halkaas ayaan isdaawadayaal kusoo gabagabeynay muuqaalkii degdeg ah caawa aan kusoo galnay bartina YouTube-ka oo aan ku eegeynay geerida Allah u naxariistay madaalihii hobalada waa bari madaalihii dhanka fanka madaalihii kooxda hobalada waa bari ee bariisamaadkii Umar Cabdulle Shawli oo Muqdisho ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ربنا شيطاني إرها بحجوبه قربي ما هيسا أتوك يا رفادي ربنا شيطاني إرها بحجوبه قربي ما هيسا وكستيو وبدا يورنتي وكستيو وبدا يورنتي يا رفادي ربنا شيطاني غيرها دحجوبه تربي ما هيسا أتوك يا رفادي ربنا شيطاني غيرها دحجوبه تربي ما هيسا ركستيو وبدا يورنتي ركستيو وبدا يورنتي راليادي في عيني نفتتي أروني ويونا كالري عقبان الراجا عقبان الراجا راليادي في عيني نفتتي أروني ويونا كالري عقبان الراجا عقبان الراجا السوجد مبلي مرونو قلبي درق مليين تبري وروني يا بين خيدي السوجد مبلي مرونو قلبي درق مليين رفتي كبان راعة رفتي كبان راعة تبري وروني يا بين خيدي السوجد مبلي كان ربي مخيسا أن كنت برد ليو
rabay maqaysaa ka rabay maqaysaa رددي قنتاشي وانا الريغمو رحرف كان قبو رامي بويالي رددي قنتاشي وانا الريغمو رحرف كان قبو رامي بويالي رمسيو رحكم اللداي رمسيو رحكم اللداي رددي قنتاشي وانا الريغمو رحرف كان قبو رامي بويالي رددي قنتاشي وانا الريغمو رحرف كان قبو رامي بويالي رمسيو رحكم اللداي رمسيو رحكم اللداي rarankii jacaylka rugtoo wadnaha galay oon karaysan waaye xaggi baanu raajaa raalliyaadii fiicinayd naftatii u roonayd waayuhuna kala raray xaggi baanu raajaa ka rabay maqaysaa aan ku dabarleeyo aan ku dabarfaado fiqaynu noqone ka rabay maqaysaa